barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa xafiiska gobolka kulan balaaran oo isbarasho iyo ka wada shaqeynta dardargelinta horumarinta howlaha qaranka la qaatay madax dhaqameedka kala duwan ee gobolka Gabiley. Kulankaasi oo muddo dheer qaatay isla markaasina ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday wax warbaahinta uga warbixiyay ujeedada kulankaasi barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed waxaana hadaladiisii kamid ahaa maanta waxaan ku kulanay gobolka shirarka xarunta gobolka Gabiley وقاشي أنا ما تقول أقول أنا حفيز كيجا وهاي إسبرشوا عن إسبرنا إنه وقاشة قبل كقبلي رنانتي سوى عن أقلب فرن ولا فرن أيدي سحب ورسنا سنا برناي وحنا قرقوا هذا إن لقش قيو أهمها من بالجليدة أهمها مجها أهمها سلحة يدك رنانتي وقاشوا وحي إيهين هالبورياش كشقيان قبلهم ودتك هيا صورية مسلحة iyo maslaxada wada marka runtii muhiimad gaar ah ay u leeyihiin ziyarada arrimaha gudaha iyo gobolada badda marka runtii oqaasha Gabiley waa oqaal isku xiran runtii xafiiska iyaguna waxa weeyaan xafiiska ku soo hiray marka runtii waxaan jecelnahay in aan noqono team wada shaqeeya oo meel wada jeeda runtii waan isla qaadanay sidii ay barsaabadii hore ula shaqeyn jireen iyo si ka fiican bay ballan qaadeen inay la shaqeynayaan runtii dareenkoodu iyo wada hadalada ku wada hadalay wuxuu ahaa mid farxad geliyay soo dhaweyn furan qalbi furan wada shaqeyn wacan iyo horumar intaba way la qaateen marka runtii waxaanu ka bilaabeynaa horumarkii wadanka ayaynu ka bilaabeynaa waxaanu ka bilaabeynaa nabadgelyada baynu sii xoojinaynaa waxaanu ka bilaabeynaa in wadanka uu noqdo wadan nabad oo lagu soo hirto ويا الحجي ورباينت قرنكا مقالة Gabiley.